filimkana wuxuu ku bilaabmayaa wiil lagu magacaabo Yanshin waa burcadka magaalada jooga hogaamiyahooda. Haatanna waxaa telefoon kula hadlaya nin ganacsade lagu magacaabo Banqi. isla markiiba waxa uu soo aaday xaggiisa. Banqi iyo Yanshin waxay ka hadlayaan arrimo ganacsi si ay share u sameeyaan lacag isu darsadaan. Banqi waxa uu sheegay inuu hayo lacag $50,000 ah oo haddana horumarin doono. Yanshin waxa la shaqeynaya nin lagu magacaabo Hari kaasoo ka caawinaya inuu dhaco lacagaha bangiyada uuna goob kala joogo si aan loo fahmin Hari. Marka uu baxay Yanshin, isla markiiba Hari waxa uu la baxay dhammaan lacagaha uu soo diray Banqi. Isla markiiba Banqi shaqaalihiisa ayaa u sheegeen in bangigiisa lacag dhan aysan ku jirin. Banqi waa uu fahmay inuu ka dambeeyo Yanshin. Waxay bilaabeen inay isaga ka daba cararaan. laakiin Yanshin isaga waa burcadka magaalada hogaamiyahooda. waxa uuna garaacay dhammaantooda waa uuna ka adkaaday. dhanka kale waxaan arkaynaa gabar lagu magacaabo Manga. waa gabar farshaxaniista ah u soo socota gurigeeda. muuqaalka xiga waxaan aragnaa gabar lagu magacaabo Sheng oo jaamacadda u soo socota. waxaana isla markiiba soo wacay qof wuxuuna u sheegay inay dib u soo laabato si uu la hadlo iyada, isagoo iska dhigaya qof yaqaano ujeedkiisuna yahay inuu iyada afduubto. markay soo aaday dhankiisa, hareeraheeda waxay ka aragtay inuu qof daba joogo. isla markiiba way istaagtay. waxay aragtay wiil lagu magacaabo Rikaan. waxa uu u sheegay Rikaan inuu xaafadda geen doono iyada. Shen waa ay ka diiday, iyadoo naxsan telefoon ku hadlayso ayna saaxiibteeda la hadlayso ayaa qof afduubtay Manga, isagoo ku qaldamay oo moodayo Shenga. afduubihii waxa uuna saaray gaarigu si uu meel cidlo u geysto gabadha. Shenga ayaa ka daba carartay, gaariga ka daba qaadatay. gaariga burcadkii jug ku siisay gaarigeeda. waa ayna soo badbaadisay saaxiibteeda waxayna saartay gaarigeeda. haatanna burcadkii ayaa aad u dhaawacmay, laakiin kama yeelin waa uu soo daba kacay. Shenga waxay rabtay inay telefoonka wacdo si ay caawinaad u hesho. waxaa ka hor yimid gaari xamuul ah, waxay galeen shil aad u xun. Yanshin ayaa goobta yimid, isla markiiba waxaa loo kaxeeyey isbitaalka labadooda. dhakhtarka waxa uu sheegay inay dhimatay hal gabar, sidoo kalena waxa uu sheegay inay isu eg yihiin labada gabar. Yanshin waxa uu isbitaalka u galay Manga, waxa uuna u sheegay inuu si xoog leh ku guursan doono maadaama uu isaga yahay burcad awood badan leh. markaasay tiri, aniga Manga ma ihi, waxaan ahay Shan. isagana waxa uu ku jawaabay inay tahay Manga. iyadana waxay aragtay sariirta ay ku jiftay inay ku qoran tahay Manga. aad ayay u baqda, waxayna bilaabtay inay ka dhuumato balakoonka fuusho. isagana waxa uu u sheegay inaysan ka baxsan karin. isla markiiba waxa uu keenay guriga. intuu u yimid si qasab ah uga codsaday inay gacantiisa qabato. waxa uuna ugu hanjabay inay israacaan maadaama uu isaga u socdo aabihiisa. gacanta ayuu si xoog leh ugu qabtay, asigoo ujeedkiisu yahay inay farxad muujiso si uu waalidkiisu u qanciyo. waxa uuna keenay guriga hooyadiisa. muuqaalka xiga iyada waxay la yaabantahay halka uu keenay, waxayna ku fakaraysaa inay ka baxsato. isaga ayay ka fogaatay, laakiin guriga dhexdiisa maadaama uu guriga aad u weyn yahay, isaga iyo Hari ayaa arkeen. Yanshin waxa uu u soo waday gudaha, waxa uuna u sheegay haddii uu mar kale waayo uu ceejin doono. haweenka markii la gaaray ayay ka codsatay inuu iska daayo. waxay u sheegtay in cidna aysan haysan hooyo iyo aabbo, iyadoo da'yar ay ka dhinteen. Yanshin waa uu ka xanaaqay arrinkaas. waxa uu ku jawaabay, hadalladan kama maqli kari mar kale. iyadana waa ay oosay maadaama isaga xoog uu ku haysto iyada. mar kale ayay ku dhahday, waa ku baryayay iskee fasax. waa uu naciijiyey isaga. waxa uuna ku jawaabay, hadallada noocan ah kama maqli kari. waa uuna ka tegey. habeenkii xigtay Yanshin burcadkiisa waxay soo dileen nin ganacsado lagu magacaabo Baager. waxay ku qariyeen maro si aan loo arkin. isla markiiba waxaa aragtay Manga iyadoo gaariga garaashka gelinayso. waa ay naxday. isla goobta waxaa yimid Yanshin. waxa uuna ku jawaabay, maxaa goobtani ku keenay? isla markii iyada ayuu goobta ka waday. waxa uuna yiri, goobtani mar kale yaanan kugu arkin. habeenkii markii la gaaray Yanshin waxa uu arkay riya aad u xun. waa uuna baqay.